السلام عليكم والاليال سو دhowaada oo walaashiina daano meel kasto dunida aad kaga nooshihiin waa idin salaamaya maanta waxaan rabaa inaan idin la share gareeyo chicken thick masala waa Indian dish waa chicken aad u macaan waxaan ku darsan lahaa hadda rabaa inaan idin la socodsiiyo iyo sidaan isku dardaraayo insha Allah waxaan ku darsanayaa yogurt oo plain ah paprika iyo chili iyo toon iyo maxaan ku sheegaa huruud intaas aan isticmaali doona insha Allah chicken kana waa chickenkii oo chicken thigh ama chicken leg waxa uu taqaanaa chickenka lugaha laakiin si fiican loo soo nadiifiyay marka isku darsanayna hadda sidaan isku darsan lahayn ila socda chickenkan ku shubanaya qaadadan waxa iigu jiro waa dhadhanaankii aan idin sheegay gabar kasta gurigeeda dhadhanaanka u yaalaha isticmaasho insha Allah 1 teaspoon hal qaad yar barbarooni gaduudan oo paprika la dhaho waxaan kaloo ku darsanayaa hal qaado oo chili ah oo basbaaska jajabsan waxaan kaloo ku darsanayaa hal qaad yar oo toonta budada ah sanaya half teaspoon oo huruud ah laba qaado tablespoon plain yogurt oo yogurtkii aan waxba lahayn fruit iyo xasmo laha laba qaadaan ku darsanayna insha Allah wixii oo dhan waa ku darsaday marka waa qasayna intii la wax everything korid isku noqonay isdhexgalayaan insha Allah chicken kan freezer kan gelinay waa isku soo noqonayna hadii Ilaahay raahdo ma sha Allah waa isku soo noqonay 8 hours oo freezer ka iigu jira hadda oven kan gelinaa ku albaaba sooskiya u suudina soo soconayna hadda waxaan dalacanaynaa suugada aan ugu talagalay chickenka inaan ku dhex shubo inta waxa iigu jiro basal inta waxa iigu jiro basasha gaduudan iyo basasha cad iyo jalapeno iyo sanjabiil marka waa isku wada dardara hadda isku daraya مع السنجبيل في jalapeno oo ku wada daraya hadda waxaan ku darsanaynaa 4 tameero aan soo shiitay oo isku soo noqonaynaa waxaan soo kumanaa xawaaji buurbuur iyo xawaaji dhuudhuub hadda waxaan ku darsanaynaa wax yar oo dhadhanaan ah iyo waxaan kaloo tuntay xawaaji buurbuur iyo xawaaji dhuudhuub aan ku darsanayaa hadda waxaan ku darsanaynaa garlic paste 1 spoon ما شاء الله suugada diyaar ay noo noqotay hadda waxaan ku darsanaynaa chickenkii aan ovenka ku soo suubiyay iyo coconut milk usually hindida waxay ku darsadaan heavy cream milk aniga laakiin maribi as healthy ahaan insha Allah chickenkii aan ku shubanaynaa هذا اللي حنقدر سنينا كوكونات ميلكيga كبسر caleenta ugu dambayso waxaan ku darsanaynaa kabsar caleentii rasha halkaas xawaajiyaashiisa dhan way u dhan yihiin dadka waa degsanaynaa waa kana chickenkan waa diyaarsanay waa u jeedaan bas waa waxa doonto ku cun ceesh rooti bariis wax walba uu qaadanaya إن شاء الله فيديو تمس أب على شير قريو سبسكرايب ولا ليه جزاك الله خيرا سيدا إي سبوت قريسان إلهي إذن سبوت قريو خير إي برواقع إذن كو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته